midnimadii gashaanka iyo garab isugeeya labadaba gaygu lahaa iyo gobanima ku dirirko bushuwa midnimadii gashaanka iyo garab isugeeya labadaba حقوية وكذوذا نعفو جنبياي عداوة جنبياي عداوة قيردو حقوية وكذوذا نعفو جنبياي عداوة waxaan ka howlgalnay soona baardheer meel u jirta kilomitir ahaan ilaa 45 kilomitir halkaas oo ay ku dhawaalaysan jireen marka cadawga ummadda Soomaaliyeed ee al-shabaab ciidamada qorsheysan oo xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saaka ka howlgalay bar fadhiisin ay ku rahayeen bay halka ahayd kuna gumaadayaan shacabka Soomaaliyeed kuna aruursan xoolo ay ku sheeganaysa ka tahay laakiin dhac iyo qaatil dariiqnimo ay ahayd waxay ku aruurinayeen gaadiid u yaalay talis ciidan bay u ahayd nimankaanu dagaalkii ay kula jireen ummadda Soomaaliyeed ama dawladda waa laga adkaaday waxay markaa ku jeesteen shacabka Soomaaliyeed inay gumaadaan neefka ariga ay la qabsadaan hasha la qabsadaan qof walba oo dhaqamo taqaanaa haduu ka shax wata ay kala barshaftaan bay go'aankooda u noqday annaguna waxaan u dhaaran dhiigga shacabka Soomaaliyeed inaan badbaadino guushooda iyo maxaawiis sumcaddooda aan ilaalino saadirtii marka dagaaladan qorshaha dagaalka uu socday ayaan taanba hadda dagaalka marka wuxuu qayb ka ahaa kii ay xoolaha ku aruurinayeen oo ahaa in waxay ku sheegaysa kawaad annagoo ka faa'iideysanayna shacabka Soomaaliyeed inay xogta keenaan yiraahdaan meeshaan nimanku wax ka aruursanayaan kaalay naga qabta annaguna taasaan u taagneen annagu sirdoonka iyaga ma taqaanaa xaway iyo habkan xogta u helno waxa way waa inta ma shacabka Soomaaliyeed baan ka helno marka aan guuleysan waxay qayb ka tahay in shacabka ay ciidanka garab taagan yihiin dagaalka al-shabaab aan kula jirnaa waa kii ay dawladda hore u shaacisay lagu jiray weeye haddii marka talis ay lahaan jireen haddii degmo laga qaban jiray midna ma aha hadda waxa weeye inaan dameer hal laansan rabno haddii inaan dameer hal laansan meesha aan tagno qofka shacabka hoos taagan waxa ay ku shina Soomaali ay weydiiyaan inaan naga qaadno shacabka siinaan rabno haddii Ilaahay ma andana dhiga marka uma suurtoobayso haddii Ilaahay haddana uu soo qorshay guush koobadna waa la gaaray una sii socon doona hawlka haddii Ilaahay intay nimankan maraan anagu ayaga ma lamayna intay maraan waa in dad mari karaan nahay oo waliba ka awood badan ciidankana ciidan tababaran weeye u tababaran hawlgalada qorshaysan aad u fulin yaqaan hadda ka horna deeshan 6 marxalad ama 7 ama dhihno waxa weey 4 sano kan aan deganayn ila 60 kilomitir baan dhumo Ahmed Gurey gadiisi iyo geesinimadii